munaasabaddan oo ahayd mid lagu daafurayay xarunta tababarka ee Shiro Jaamac ayaa lagu qabtay hoolka shirarka dugsiga sare ee Amiir Nuur degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. xarunta Shiro Jaamac oo ay aasaaseen dhalinyaro aqoon-yahano ah ku nool degmada Garbahaare ayaa waxa ay sheegeen in xaruntu qaban doonto tababaro sare loogu qaadayo xirfadaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada. waxa kale oo macadku qaban doonaa dood cilmiyeed aqoon-yahanada deegaanka ku dhaqan oo qabanayo sidoo kalena waxa ay xaruntu soo saari doontaa cilmi baaris ku saabsan sidii bulshada deegaanka looga horumarin lahaa dhibaatada ka taagan wadanka Soomaaliya. waxaana ugu horeyntii munaasabada daafuray Maxamed Ibraahim oo ah xubin kamid ah aqoon-yahanada macadka furaysay. macadkan waxaan maartay istusnay inuu deegaanka ku soo zaayin doono waxbarasho hor leh oo aan deegaanka hore uga jirin. waxbarashadu oo shaqeysanayo waxa laga yaabaa sanadkii inuu 7 tababar qaato. hadduu hooyo yahay waxaa lagu barayaa xanaanada maartay ilmaheeda si u haysan lahayd iyo tababarkii maartay tarbiyada ilmaha sida cunada ay u karin lahayd sida ay cilaanka u saaran lahayd waxyaabahaas noocaas oo asaasiyaadka ah marka la soo qaado bulshada qofku markii uu isweydiiyaa sida dhaqankeena hore ahayd waa wax la kala dhaxlo oo ay gabadhu ka qaad dhaxasho hooyadeed cunada si loo kariyo sida la isku qurxiyo. laakiin macrifadu maadaama hadda adduunku aad ugu badan tahay way jirtaa xataa heer jaamacadeed baa laga soo baxay in cunno la kariyo. waxaa iyagana dhankooda soo dhaweeyay qaybaha bulshada rayidka ah ku dhaqan degmada Garbahaare sheegayna in ay u baahnaayeen macadkan oo kale. waxaad moodaa wax shalay iyo daraad iyo annagu aan isweydiinayno maanta in loogu yeeray oo annagana ogaa aad baan u yaabnay hadda markaan aragnay xirfadaha injooga shala mise daraad wuxuu weydiinaya baahida ay ku dareedin kareen Garbahaare sheegta aan ka qaadnay annaga urur haween ahaan baahidii aan sheeganay waxay ahayd xirfadan meesha ku qoran aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa annaga haweenka aad bamooda qaasatan inay basaaka noqoseeyaan warka midigta ah aad bay soo jiiteen oo ahaa wax ma wada qabsan karnaa inagoo iskhilaafsan haa baan leeyahay anigu haddii la suurtageliyo waxa wada qabsan karnaa anagoo iskhilaafsan inaan wax wada qabsanaana muhiim. haddaba iyada oo wax badan lagu kala duwan yahay baa waxyaalo badan la wada qabtaa laakiin in laga sii wanaajiyo sidaas. وبعد waxaan salaamayaa dhamaan dadka meesha isugu yimid dhalinyarada aqoon-yahanada odayaashii khiyaartii soo agaasimay xafladan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib waxa weeye arrintan maanta halkaan nogula yeeray ah macadka tababarka xirfadaha ee Shiro Jaamac xaqiiqadii waxaan ku tilmaami karnaa wax aad u wanaagsan. waxaana dhalinyarada aqoon-yahanada ee furaysay macadka halkudhag u ahaa in kala duwanaanshaha afkaarta ay noqoto mid deegaanka u horseeto horumar ee uusan noqon khilaaf wax burburiyo taasoo bulshooyinka Soomaaliya dib u dhac ku riday. Xaaji Faarax raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado.